السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan skill hub waaye maalmahan xogaa fiidiyoyadeeni iyo waxyaabaha soo gelinayna waa ka gaabinay mashquul awgii laakiin insha Allah dib aan u bilaabi doonaa waxaan rabaa maanta inaan idin tuso faa'iidada ay leedahay barashada digital marketing digital marketing marka la aad u ballaaran yahay anagana waxaa bixinaa course A to Z aa ku baran doontid digital marketingka saa u jeedid yani waxyaabaha ay ka kooban tahay coursekeena marka aragtid course lamida yani oo afka Soomaaliga ku baxda ma helaysid number 1 waxaa baranaysaa introduction guud oo digital marketing ku saabsan website design-kii Google My Business-kii search engine-kii Google Ads-ka noocyo kala duwan leh wuxuu leeyahay search aad uu leeyahay shopping aad uu leeyahay video aad uu leeyahay display aad jiro waxaasna waa arki doontaa social media fundamental-kii arki doontaa haddii aanad Facebook marketing-kii Twitter-kii YouTube marketing-kii LinkedIn-kii Instagram-kii Pinterest-kii SlideShare-kii Quora marketing email marketing-kii sidoo kale online reputation management-ka yani digitalka markaa baratid sumcadda company-gan inaa ilaalin karto muhiim waa inbound marketing aa jiro outbound marketing aa jiro Google Ads-ka waa arki doontaa affiliate marketing-kii freelancing-kii YouTube monetization-kii Google Analytics-ka marka waxaa rabaa waxa aan rabo inaan usoo laabto waxay tahay tusaale hadda qofka normalka ah markii oo website oo samaysto يعني simple website-kiisa ma ogo qofka meesha uu ka soo galaayo halka uu ka imaanayo yani qofka website-kiisa soo galaayo muxuu raadiyaa marka waxaa rabaa faa'iidada digital marketing ay leedahay waxaa ka mid ah analytics-ka in yani la socon kartid daatada website-kaaga hadda tusaale halkan waxaa loo yaqaanaa Google Analytics waxaa loogu talagalay website-kaaga reportkiisa inaad kala socoto tusaale hadda yani halkan traffic channels-ka website-keena waxa waaye direct ugu badan waxa ugu badan directiga waxa u badan hadda dhanka socialka u badan waxa ku xigo directiga ku xigo organiga ku xig referral ku xigo iyo otherska yani maxaa ula jeedaa marka traffic waxa la dadka website-keena soo booqanay meesha ay ka imaadaan waxa loo yaqaan traffic marka yani waxa simply aan qiyaasi kartaa website-kan dadka ka imaado isticmaalo ama skill hub dadka soo booqdo intay ka imaadaan saas aad ogaan kartaa sidoo kale source of media miskiisa waa kana direct Google organic referralskan oo website kale oo waxaa jiro tusaale hadda haddii aan dhahno ka soo qaata digital marketing course Soomaaliya yani waxaa ku jirnaa first page wuxuuna siinaa baalkan hadda yani maxaa la referral oo siinaa referrals lagu sheegaa tusaale kan camal qofka soo arko yani Google My Business ka soo arko oo maapkan ugu arko haddii uu dhaho mareegteena camal uu raadiyo automatic waxaa la keeni doonaa page-keena marka waxaabaas faa'iidada ay leedahay digital marketing waa saa u jeeda hadda yani waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa active userska oo page-keena soo booqdo waa 2,000 yani per day camal sidoo kale waqti koritaanka waa kana tusaale aad u growth u suubinaa maalmaha saa u jeedid waxaa ogaan kartaa website-kaaga yani booqashadiisa ma yar tahay ma hooseysaa waa ogaan kartaa sidoo kale user retention-kaaga ogaan kartaa user retention-ka waxaa laga wadaa yani qofka website-ka markuu soo galo hore muu ka baxaa mise website-kaaga uu dhex wareegaa wax badan oo fiiriyaa waxaabaas dhan waxaa ku baran kartid waa digital marketing sidoo kale user time-ka waqtiyada ay u badan yihiinna waa halkaan aad fahmi kartaa sidoo kale dadka website-keena soo booqda meelaha ay ka imaadaan tusaale waxaa ugu badan Kenya sidoo kale waxaa jiro kasoo qaad Turkiga dadaa naga soo booqdo meelaha kale nagala soo booqdo saa u jeedid waxaa ka mid ah Germany marka yani xogtaas not only intaan waxaa ogaan kartaa xitaa dadka erayada ay soo baaraan markay rabaan inay website-keena soo booqdaan marka waxaabaas waxaa ku bari karo oo keliya marka aad taqaanid qof oo expert oo khabiir aad tahay oo ku tahay digital marketing marka waxyaabaha dhan si aad u fahamtid yani course-keena waa kala soo kale waxaa ogaan kartaa pages ugu badan dadka ay tagaan dashboard-ka hadda arag waxaa maalmaha hadda xilliyadii hore waxaa noogu badnaay digital marketing hadda hoos u dhaca ku imaaday sababtoo ah course ugu badan ee dadka hadda inaa qaataan waxa waa e-commerce-ga yani wax badan halkan ku ogaan kartaa audience-gaaga haddaa aragtid overview aa dhehaysaa يعني dadka ku soo booqdo yani rag ma u badan dumar ma u badan waxaabaas dhan waxaa ku ogaa kartid waxa waa analytics-ka iyo haddii aad tahay qof oo digital marketing waa kana userska new userska oo soo booqdo sessions-ka ay ku qaataan new visitors waa kaasa returning visitors oo kusoo laalaabanaya waxaan ugu badan yani dadka oo new userska ee aadka noogu soo laalaabto oo cusub ee website-keena imaanaya marka waxaabaas waxaa keenayo yani waxa aan ranki garaynayno marka waa kana demographics-ka dadka languages-ka ay ku hadlaan systemyada ay isticmaalaan operating system-ka service providers-ka
all these waxaa ka ogaa kartaa intaan marka sidoo kale marka adi qof digital marketer aad tahay yani faa'iidooyinkaaga waxaa ka mid ah magaalada aad joogtid waxaa laga aqoonsanaa sababtoo ah pageka ugu badan waxaa noqonaysaa qofka manage gareeya marka soo dhawaada halkan skill hub waaye coursekeena open waaye koorsooyin kala duwanna waa ka helaysaa haddii aad rabto inaad nala soo xiriirtid qaybta hoose maxaa la dhahaa commentiga xogtaada kusoo qor dib aa kula soo xiriiri doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu